waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen Cabdi Saciid oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu u igmadeen in uu dardar geliyo halkii ay taagneedna ka sii qaado wasaaradda arrimaha dibadda. waxa kaloon hambalyeynaya walaalkay Maxamed Cabdirasaaq oo muddadii sanadka ahayd uu joogay waxyaabo fara badan qabtay, shaqooyin badanna hore u dhaqaajiyay. waa sunnaha dawladnimada in hadba qof uu hago ama halka ay shaqadu markaa joogto uu ka sii amba qaado oo uu meel gaarsiiyo. waa taa imaka waa wasiirkii soddonaad sida intiina xogaalka ahayd soo tabiseen Cabdi Saciid. marka waa garaanta wareegaysa dawladnimadu ee hadba qof dhiig cusub iyo dardargelin iyo dhaqaajin cusub uu gelinayo. wasaaradda arrimaha dibadda ahmiyad weyn baa sidaynu ka wada dhareegsanahay idinkuna aqoonta u leedihiin ay dalkan u leedahay. waa muraayadii laga arkayay dalka wanaagga gudahaaga ku jira. qof ahaan haddaad caafimaad qabto weji quruxsan baad yeelanaysaa. marka dalku hadduu gudihiisii wanaag leeyahay, wax qabsaday, wax dhaqaajiyey, hawlo qabtay, cidda dunida u tabinaysa ee tusaysaa waa wasaaradda arrimaha dibadda. haddii wadamada dibadda inoo imanayaanna albaabka ay ka soo gelayaan ama muraayadda ay naga daawanayaan waa wasaaradda arrimaha dibadda. marka wasiir ku-xigeenka, xogayaha, safiirada iyo shaqaalahaba kala duwan inta aad qurxisaan wasaaradda, wanaajisaan, fariinteenna dunida gaarsiisaan ama dalka gudihiisa soo gaarsiisaan waxa dunida hareeraheeda ka jira ayaa ay tahay dalka dhan wanaagiisu. marka ahmiyadda weyn ee halbowlaha ah ayay wasaaradda arrimaha dibadda leedahay. oon isla wada qirsannahay oo dhammaanteedna aan ka dhareegsanahay. idinkuna haddaa safiirada tihiin iyo diblomaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta kala duwanba aan usii fara dhuudhuuban tihiin, dadka badankiisana uga aqoon badan tihiin. xaalad baa lagu jiraa geeska Afrika maanta. aada moodaba Soomaaliya inay tahay dalka ugu roon ee ugu ladan wadamada geeska guud ahaan iyo inta ka talowsanba. maanta halkii shalay iyo doraad iyo dhowr sannadood ka hor aan joognay waa ka fiicannahay, meel wanaagsan baan maraynaa. haddii Soomaaliya budhcadbadeed lagu xasuusan jiray waan ka soo gudubnay, shaqooyin fara badan ayaynu qabannay. haddii lagu xasuusan jiray argagixiso, meel wanaagsan baynu waa ka soo gudubnay, wax badan baynu ka qabannay, meel fiican baynu maraynaa. fariintaa dunida cidda gaarsiinaysaana waa wasaaradda dunida u warramaysaa, madalaha caalamiga ah ee laga garnaqsanayo uga warramaysaa. marka shaqo weyn baa runtii idin taalla. duruufaha jira iyo awoodaha aynu leenahay ee kooban iyaday jiraan aynu wada xasuusannahay. haddana diblomaasiyiinta qaranka metelaya ee calankii metelaya dibadaha jooga iyo wasiirada iyo waxyaha kala duwan ee wasaaradda ay u soo gudbinayaanba waxaynu ku wada jirnaa halgan ay tahay dalkeennu siduu ahaan jiray inaynu ku soo celinno, halkuu joogi jirayna inuu dunida ka joogo run ahaantii maantana meel wanaagsan maray. waa run xilli doorashooynu hadda ku jirnaayo xildhibaanna iyo doorashooyin lagu mashquulsan yahay. haddana doorkii aad lahaydeen waa mid muhiima oo taagan oo intii awal uu joogay inaad kasii labalaabtaan, meel dheerna gaadhsiisaan loo baahan yahay. dadaal halgan ah oo aan la nasanina inaynu ku shaqayno oo wadaniyad iyo shucuur mas-uulnimo ay saaran tahay. taana la idinkula dardaarmi maayo. waan ku kalsoonahay run ahaantii inaydun door kaa ciyaari kartaan, waayo aniga qudheyda ama madaxweynaha aan ku matalayo safarro dibadeed ama shirar gaari khuseeya aan u baxayo, wasaaraddu ahmiyadda ay leedahay waan ka warqabaa. dal kastoo dibaddoon tagana run ahaantii hadday shaqadu iyaga dhammaato waxaan ku dadaalaa inaan safaaradda iyo safiirka aan soo arko, la shiro shaqaalaha, duruufaha jira ogaado. waxaa leeyahay maanta meel fiican bay noo maraysaa. 2017 markii Cabdisalaan Hadliye iyo Yuusuf Garaad ay xilka la kala wareegayeen goobjoog baan u ahaa. dhowrkii wasiiroo u dambeysayna waa maanta ugu dambayso waan goobjoog baan u ahay. mar walba wasaaradda waxaa ku soo kordhiya meesha 4 sano iyo barhkii la gaarsiiyey. run ahaantii waxaan isleeyahay mas-uuliyiinta cidda ugu dhowaad ka mid tahay. marka waxaan leeyahay Cabdi Saciid soo dhawow adiga wasiir ku-xigeenkuba xilli kooban oo ay tahay inaynu xaqiijino doorasho la dhammaystiray oo golaha shacabka iyo aqalka sareba ah dariiqeedii marta doorta madaxweynihii dalka hagi lahaa
ama u cusboonaysiiyey madaxweyne farmaajo xildhibaanka Soomaaliyeed bay shaqadaasi hortaal marka hawshaas iyadoo lagu jiro ayaad ku soo beegantay waxaan is leeyahay meel fiican dhinaca amniga oo khibrad u leedahay iyo siyaasadda geeska Afrika ka socota tacarbeed ta dunida daafaheeda kala duwan in xaaladda aan ku jirnana si fiican aan ku kalsoonahay in loo tabiyo iyo shaqooyinka fiican aynu qabanayno arrimaha geedi socodka doorashooyinka iyo halkay tahay inaynu gaadhno iyo dowhabeynta amniga iyo arrimaha dhaqaalaha guud ahaanba waxa kaloo oo hambalyeynaya oo leeyahay u sii ducaynaya ilana qabtaan walaalkeen Maxamed Cabdirasaaq oo mas'uul muddo dheerna isnaqaanay intaanu xilka siyaasadda qaban ka hor aanu ka wada shaqayn jirnay meelo kale aanan khibradaadii iyo aragnimadaadina mar walba diyaar u nahay inaad nagu kordhiso walaalka wasiirka arrimaha dibadda ay cusub ku kordhiso waxaan leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda guuleysta dhammaantiin iyo bahda wasaaradda iyo diblomaasiyiinta qaranka Soomaaliyeedna ha guuleysto ilaahay idamkiisana imtixaanka doorashooyinka waa ka bixi doonaa waxayna inoo ahaan doontaa dardargelin cusub oo dalka inaynu meel dheer gaarsiino halkaad awal horeba soo gaarsiiseen waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh